kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine oan kusoo gudbina xogaha ugu dambeeyey iyo warbixinada xogta caalamka. barnaamijkeena qodobadan idinku soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona dalka Turkiga ayaa hamigii siyaasadda ee ahaa inuu gacanta ku dhigo dalka hodanka ee dalka Liibiya iyo sidoo kale Mareykanka oo ku wareejiyay furaha bariga dhexe. dalka Imaaraadka Carabta ayaa dareemaya fadeexada ay kala kulmeen xiriir ay la sameeyaan Israa'iil iyo warbixino kale ayaan idin soo gudbin doona. Mareykanka iyo Ruushka ayaa u muuqda inay u soo jeedaan nooc ka mid ah isku hormaadyada socda ee Syria iyo Liibiya iyadoo xiisadda ka dhaxaysa ay labada dal aad u sii xoogaysanayso, isla markaana Turkiga iyo Mareykanka ay cadaadinayaan inay door weyn ka ciyaaraan arrintaas. bishii June 8 madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu madaxweynaha dalka Mareykanka uu qadka telefoonka kula hadlay isagoo kala hadlay arrimaha Liibiya iyo sidoo kale qodobo kale. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa taha ka qaaday ka qayb qaadashada sidii ka horeysay ee Ruushku danaha uu ka leeyahay dalka Liibiya inuusan Mareykanku indhaha ka laaban doonin, halkaasi oo 10 sano dagaal sokeeye oo dhiig badan ku daatay oo ka dhacay iyadoo Washingtonna ay ka walaacsanayd tan iyo markii Turkiga uu laba heshiis oo waaweyn la galay dowladda sharciga ah ee dalka Liibiya ee China bishii November 2019. tartanka tamarta ee bariga dhexe iyo xiisadda Liibiya ayaa galay weji cusub, laakiin Turkiga ayaa shaxdiisa si dhammaystiran ugu guuleystay Liibiya iyada oo faragelintiisa Liibiya ay fure u noqotay ajandihiisii badda Mediterranean-ka. haddii uusan guushaasi taageerada ee China uusan siina aysan u suurto gasheen dalka Turkiga. heshiiska xuduudaha badda ee ay kala saxiixdeen Turkiga iyo Liibiya ayaa keenay faa'iidooyinka badda ee Turkiga gobolka, waxaana u ogolaaday Turkiga inay noqoto mid ka mid ah furayaasha Liibiya ee hadda kadib gacdoomintii aan lagu guuleysan ee Tripoli ay ku sameeyeen ciidamada General Haftar. waxay si toos ah Turkiga ugu fududeysay ku lug lahaanshaha Turkiga ee iska hormaadka iyada oo la ilaaway walwalka reer galbeedka ee ay ka qabeen Greece iyo Qubrus inay dhibaato ku noqotaan faragelinta military ee Turkiga uu ku yeesho dalka Liibiya. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay marxalad cusub xiriirka uu la leeyahay Mareykanka kadib markii telefoonka uu kula hadlay 8 bishii June madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo uu sheegay waxaa lagu xalin doonaa xiriirka shakhsiyadeed ee aanay ahaan Erdogan iyo Trump ajandaha ugu sarreeya ee Liibiya. guusha military ee Liibiya ayaa ka dhigtay Turkiga qariirada ugu weyn ee gobolka. Mareykanka ayaa aaminay awoodda Turkiga inay tahay mid ka jirta gobolka, sidoo kalena dalalka Carabta ay u arkaan inaysan babac u dhigi karin qariiradaynta dagaalka ee dalka Ruushka. taageerada military ee Turkiga ee uu siiyay China isbuucyadii la soo dhaafay ayaa cabiray miisaanka awoodda 5 sano wixii ay la rafanayeen in uu wax ka bedelay guulaha China uu siinayay dalka Turkiga, iyadoo faragelinta military ee Turkiga ay ku guuleysatay in ay garaacdo xoogga Khalifa Haftar. Ruushka waxa uu weecan karaa taageerada siyaasadeed ee Aqilah Gulah oo ah madaxa golaha wakiilada ee Tobruk oo laga yaabo inuu noqdo mid ku habboon xiriiryaha siyaasadeed ee Turkiga iyo Ruushka sida uu door bidayo. Fahim Taskini oo ah diblomaasi reer Liibiya ayaa sharaxaya, waxaana uu yidhi meel isugu imaatinka waxay u muuqataa in ay la soo baxday Ruushka si loo keeno ciidamada Tripoli iyo Tobruk miiska wadahadalka iyada oo loo marayo in Ruushka uu doonayo ammaan inuu u helo xasilinta Liibiya iskana iloobay Haftar. sidaas darteed Imaaraadka, Masar iyo Faransiiska ayaa ka maqnaan doona ciyaarta. diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa sidoo kale sheegay in maamulka Trump ay tixgelin karaan Turkiga mid miisaan culus leh. saameynta Ruushka iyo Iiraan ee siyaasadaha badan ay isku arkayaan dalka Turkiga sida Suuriya kadib dagaalo ka dhacay Idlib oo dhex maray ciidamada Turkiga iyo Syria oo ay taageerayaan labada dal ee Ruushka iyo Iiraan oo ku bilowday bishii January. Erdogan dhinaciisa waxa uu muuqdaa mid ku faraxsan oo dhiirigelinaysa aaminaadda Turkiga inay la ciyaari karto Washington oo ay kala safan karto Washington kulan ka dhana Moscow, iyo in sidaas la sameeyo in ay gacan ka siin karto sidii ay ajandaha kor ugu qaadi lahaayeen ka hortagga Moscow ee arrimaha Syria iyo Liibiya. Mareykanka, Syria iyo Liibiya, badda madow ilaa badda dhexe. Erdogan waxa uu hadda u muujinayaa in Turkigu u baahan yahay Mareykanka siyaasad ahaan iyo istaraatiijiyad ahaanba sidii uu waqti hore ahaan jiray. waxa uu bartay waayo aragnimada in helitaanka Mareykanka ay fure u tahay ka hortagga Ruushka. sidaas oo tahay ayuu ku dhiirigeliyay Erdogan Mareykanka inay ka qayb galaan tartanka loogu jiro dalka Liibiya iyo sidoo kale inay ku taageeraan ajandaha dalka Liibiya.
hadalka madaxweynaha Turkiga kadib wadahadalka Trump ayaa muujiyay in dhammaan arrimaha ay isku hayaan Mareykanka la xalinayo xiriirka Mareykanka iyo Turkiga iyadoo uu turunturooday kadib heshiisyadii gantaalaha S-400 ee Ruushka uu la galay dalka Turkiga, taasoo u muuqata in qorshaha xalka ay ku jirto. inkasta oo Turkigu markii hore diiday xabad joojin oo ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Siisi, Turkiga waxa uu aqbalay xabad joojinta kadib kalsoonida Mareykanka iyo Ruushka uu ka helay iyadoo astaamo diblomaasiyadeed muujinayaan maadaama Erdogan uu kaarkiisa la wadaagayo Trump iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Trump ayaa la hadlay Siisi bishii Juun 11keedii 3 maalmood kadib markii uu wacay Erdogan. Trump waxaana u muujiyay taageerada uu hayo dadaaladan xabad joojinta ee uu soo jeediyay Siisi. isla maalintaas wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga waxa uu ugu yeedhay Mareykanka in ay door firfircoon ka ciyaaraan arrimaha dalka Liibiya iyo helitaanka xabad joojin waarta. intaas waxaa ka sii weyn, Turkiga ayaa aaday dhanka NATO isagoo oo galay heshiis ay kaga midaysan yihiin ajandaha arrimaha dalka Liibiya. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga iyo xogayaha guud ee ururka NATO ayaa qadka telefoonka uga wada hadlay arrimaha Syria iyo Liibiya iyo arrimaha gobolka. wasaaradda difaaca Turkiga ayaa sidaas sheegtay bayaan ay soo saartay Jimcihii. bayaanka ayaa lagu sheegay in wasiirka difaaca Turkiga iyo xogayaha NATO Stoltenberg ay isweydaarsadeen aragtiyo ku saabsan arrimaha amniga iyo NATO. wasiirka gaashaandhigga dalka Turkiga iyo xogayaha NATO waxa ay isweydaarsadeen aragtiyo ku saabsan NATO iyo arrimaha gobolka oo ay ku jiraan Syria iyo Liibiya iyo sidoo kale kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee NATO. heshiiska NATO iyo Mareykanka Turkiga ku taageerayaan ayaa Ruushka siiyay kalsooni wixii Liibiya uu kala hadlo Turkiga inay sii waarayaan, halka wixii mucaaradka ahna uu isaga wakiil ka noqon doono, Carabtana la iska ilaawi doono. Turkiga waxa uu haystaa kaar laba dhinac leh isaga oo u dhexeeya Mareykanka iyo awoodaha kale ee Ruushka iyo Iiraan, taas oo hanti siisay Turkiga badda Mediterranean-ka. Turkiga kalsoonida hadda uu haysto xabad joojinta ayaa ah in Mareykanku uu ku ciqaabi doono Masar iyo Ruushka ama Imaaraadka kii jabiya, taas oo si dheeraad ah kalsooni u siinaysa dalka Turkiga. taas waxaa sii dheer, Masar ayaa Ruushka kula dhacday xanaaqa, taas oo keentay in diyaaradaha Ruushka loo diido saldhigga kooxda mucaaradka ay ku lahaayeen dalka Liibiya. diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa sheegay kulanka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Trump inay ugu muhiimsaneyd in dalka Mareykanka walwalka uu ka qabo Iiraan iyo weliba sidoo kale Ruushka uu ku siiyay dalka Turkiga kalsooni ah inay kala shaqayn doonto arrimaha siyaasadda ee dalka Liibiya iyo sidoo kale in la gaadho xabad joojin waarta. iyadoo dhanka kale uu dalka Turkiga iyo xulafadooda China ee dowladda Liibiya ay wato qorshayaal ay doonayso inay ku qabsato magaalooyinka ay ku xoogan yihiin Ruushka iyo weliba mucaaradka kale, taasi oo ah in wadahadal ay ku gasho qabiilada iyo sidoo kale kooxaha ka soo horjeeda Khalifa Haftar. xilli ay si weyn u naceen dadka Liibiya Khalifa Haftar, Yuusuf Al-Jabbar oo ah 63 sano jir macallin howlgab ah waxa uu ku ammaanay doorka muhiimka ee Turkiga iyo guulaha dhawaan ciidamada China. waxa uu yidhi dadka reer Liibiya waxay u oomanayeen dimuqraadiyad, isbedel nabad ah iyo doorasho xal ah, isagoo raaciyay in ay ka soo horjeedaan kuwa nabadooda dhaawacaya. Ruushka ayaa isku dayay isaguna inuu matalo dhammaan badanaha kooxaha mucaaradka ah, isagoo doonaya uu kaga wakiil yahay ay ku meel maraan siyaasadihiisa uu doonayo mustaqbalka inuu kula galo Washington iyo weliba dalka Turkiga. geesta kale, barnaamijkeena xogta Shiine, dalka Imaaraadka Carabta ayaa dareemaya fadeexada ay kala kulmeen xiriir ay la sameeyaan Israa'iil iyadoo aan wanaajin xiriirka dalal kale Islaamka ama sii wada ku darsashadeeda dhulka Falastiin. Israa'iil kama filan karno inay caadi ka dhigto xiriirka dunida Carabta haddii ay goosato qayb ka mid ah daanta galbeed. waxaa sidaas qoray diblomaasi Carbeed oo u sheegay mid ka mid ah wargeysyada Israa'iil. saraakiisha Israa'iil ayaa ku gacan sayday guuxa in ku darsashada qayb ka mid ah daanta galbeed ay hoos u dhigi doonto isu soo dhawaanshaha ay sameynayeen dalalka Carabta iyo dalka Israa'iil, gaar ahaan Khaliijka, iyadoo Israa'iil ay la wadaagto walaaca ay ka qabaan Iiraan. safiirka Imaaraadka Washington Yusuf Al-Duwa waxa uu sheegay in talaabadan ay noqon doonto la wareegis sharci darro ah oo lagu sameeyo dhulka Falastiin. ku darsashada waxa ay xaqiiqdii si degdeg ah meesha uga saari doontaa damaca Israa'iil ee ah in ay xiriir la samayso annaga, shaqaalaha iyo dhaqanka Carabta ee dunida Islaamka, gaar ahaan Imaaraadka Carabta, ayuu sheegay safiirka Washington ee dalka Imaaraadka. Israa'iil wax xiriir diblomaasiyad ah lama lahayn dalalka Khaliijka, hase yeeshee waxa ay la wadaagtay walaac ay ka qabaan saameynta Iiraan ee gobolka, taasi oo keentay in isu soo dhawaansho u dhex maro dalalka Carabta ay ugu horeeyaan dalka Imaaraadka, taas oo muuqata in si weyn ay u dhaawacmatay maalmihii ugu dambeeyay oo eedeyn ay u jeedinaysay Imaaraadku dalka Israa'iil.
bishii May shirkadaha diyaaradda ee fadhigooda yahay Abu Dhabi ayaa duulimaadkii ugu horreeyay ku tagay Tel Aviv, taasi oo loo muujiyay isu soo dhawaansho dhinacyadaas dhex maray. Dhammaan isu soo dhawaanshahaas oo yareynaya cadaawadda ku wajahan Israa'iil waxaa gebi ahaanba waxyeelayn doona go'aanka Israa'iil ay ku doonayso dhulka Falastiin, ayuu sheegay safiirka Imaaraadka Carabta ee Washington. Masar iyo Jordan ayaa labada dal ee Carabeed ee kaliya xiriir rasmi ah la sameeyay Israa'iil. Dowladda Israa'iil ayaa damacsan in ay kowda bisha Juun bilowdo ku darsasho qorshaha goosashada daanta galbeed.